السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو وناكسن دمانتين ميل كستو أجوكتان كسو دوادا مركلا إيا بربار سما channel يهو فصح والدين سو قلاي فصحاني نوغا فائدين إيا انتان فصح كتشيرو وحارتين إيا إنان كسو قارسيو موقالا فربضان oo maaragtay inta fasaxa kale aan soo gali doono inta shaqeynayo oo dhan ay igu sii sugtaan iga raali ahaada inaana maaragtay idin dadaalin laakiin sidaan mar walba ka cudur daarto waqtigeygaas ka sidaas haddii aad hore noola joogtay aad iyo aad baad ugu mahadsantahay joogitaankaaga barbaarsama channel waxaan aad iyo aad idinka mahad celinayaa commentiyadiina wanaagsan kuwa waxweydiinta ah kuwa maaragtay bogaadinka ay dhiirigelinta ah intaba aad baan idinka mahad celinayaa waxa kale aan soo dhaweynayaa dadka inagu soo biiray ee cusub waxaan idin leeyahay soo dhawaada ku soo biira bahda barbaarsama channel kaale nala barta tarbiyada caruurta dhiirigelinta waalidiinta iyo waliba qisooyinka iyo sheekooyinka iyo dhacdooyinka wararka ku saabsan dhinaca caruurta intaasba halkan waad ka heli kartaan insha Allah soo dhawaada baan idin leeyahay si share gareeya like taha hilmaamina waa dhiirigelintayda waxa kale aan idinka codsanayaa ina maaragtay haddii muuqaalku ku cajabiyo aad si share garayso la wadaagto waalidiinta kale ee kugu xidhan ama waalidiinta kale aad garanayso si iyaguna maaragtay ay uga soo mid noqdaan bahda barbaarsama channel laga yaaba haddii adigu aad wax ka faa'iideyn iyaguna wax ka faa'iidi doonaan inta markan halkaas kaga imaado markan waxaan idin wadaa muuqaalkan wuxuu noqonayaa muuqaal ah dhiirigelin iyo waliba tarbiyad isugu jira labadaba dhiirigelinta waalidiinta iyo tarbiyada caruurta labadaba isugu jira waxa aan had iyo jeer ii soo weydiisaan ama aan dareema ama igu soo celcelisaan ama qoraaladiina kamid ah calshaan sidee baan waxa u sameyn karaa sidee baan u noqon karaa ilmahaygu u noqon karaa ilma aan qalqaal lahayn oo degan sidee baa maaragtay khilaafka maaragtay aniga iyo ilmahayga ama ani caruurtaydu naga dhex taagan uu u yaraan karaa su'aalo badan oo sidaas ah 6 qodob oo aad iyo aad u muhiim ah noloshaada dhan ku anfici doona haddii aad wuxuun ka isticmaasho ama aad wuxuun maaragtay isku daydo oo tijaabiso ayaan kula wadaagayaa markan soo dhawaada barbaarsama channel markale ku soo dhawaada qodobka ugu horeeya ee aan idin la wadaagaya waxa uu noqonayaa ta koobaad noloshaada oo dhan aad ku bedeli karto tarbiyada caruurtaada aad ku wanaajin karto adigu tarbiyadaadii akhlaaqdaada iyo wax walba aad ku wanaajin karto waxa weeyaan bedel oo iska ilow dhaqankii lagugu soo koriyay yacni ma ilaabi kartid laakiin haddana ha isku dayn marnaba dhaqankii lagugu soo koriyay in aad ku koriso caruurtaada maxaan ka wada dhaqankii lagugu soo koriyay waxaan ku leeyahay dhaqanka Soomaalida ka tag ma waxaan ku leeyahay adigoo dhan dhaqan kala qaado oo dad kale oo dhasheen maya waxaan ka wadaa inaga markii laynu soo korinay dadka da'deena oo kala ah aniga iyo da'dayda kuwa iga yar kuwa iga yar waaweyn iyo isku soo wada duub oo inteena imika waalidka ah waqtigii layna soo korinayay koritaanka ama wadankeena aynu ku soo kornay koritaankiisu wuxuu ahaa ama tarbiyada layna tarbiyadeynayay waxay ahayd mid adag mid dil ma ku jirto mid canaani ku jirto mid qalafsan maaragtay 10% mooyaane inta badan saasay ahayd haddii markaa adiga canaan wax kasta lagu sheegay lagu canaanan jiray waxay kugu leedahay saameyn waan ogahay haddii wax kasta oo khalad kasta aad samayso lagu dili jiray waan ogahay saameyn bay kugu leedahay haddii macallinkaagu ku dili jiray saameyn bay kugu leedahay haddii waalidkaagu dili jiray saameyn bay kugu leedahay haddii walaalaha ku dili jiray saameyn bay kugu leedahay waxaas oo dhan waan ogahay laakiin waxa la rabaa waxaas oo dhan in aad markan ka tanaasusho inaad adigu istiraahdo okay markii anigu sidaa saaladigu sameyn jiray waxaasan dareemayaa ilaa imika anigiyo 30 jir anoo 20 jir anoo 22 jir anigiyo ma garanaysa 25 jir ah marka maxaan anoo 40 jir anoo 50 jir maxaan maaragtay caruurtayda haddii maanta aan sidii oo kale ku sameeyo 50 jirkooda 40 jirkooda 30 jirkooda sidan aan anigu maanta dareemi doonaan waan ogahay isweydii
ma ku faraxsantahay adigu ina saasoo kale lagugu soo koriyo ama ay kugu soo dhacdo? waa maya. si aanay haddaba iyaguna saasoo kale ugu noolaanin, waxaa muhiim ah in aad ka ilaaliso waxyaabihii noloshaada adiga kugu soo dhacay oo dhan ku dhibaya imika, in aad had iyo jeer kala tacaasho ilmahaaga inay ku dhacaan oo aad sii gudbiso. dadku waxay u kala baxaan qof dhibaata soo gaadhay ama wax kusoo dhaceen ama sidaa kusoo koray oo marka uu weynaado is yidhaahda maxaa kaa gala, adigaba waa lagugu soo koriyay sidaa. dad badan oo maaragtay reer YouTube aad bay commentkooda u fiican yihiin, laakiin dhinaca TikTok-ga qaar badan baa isoo qora anigaba saasaa lagu soo koriya, ana sidanaan kusii korinaya. maxaa ka macnaa anaguba saasaana lagu soo koriyey, imikana waa ka noolnahay intaasaan leegna. waad ka noosha, laakiin maxaad ku nooshahay? waad ogtahay sidii lagugu soo kori waayo maadaamaad comment iigu soo qorayso weli maad ilaawinba. sidaasoo ay tahay waxa aan dadka qaar waxay u kala baxaan qaar wixii lagu soo sameeyey sii gudbiya oo iyaguna dadka kusii sameeya. haddii la caayi jira way sii caayayaan, haddii la bahdili jira way sii bahdilayaan ilmihii yaraa, haddii la dili jira sidoo kale, haddii la canaanan jiray sidoo kale. dadka qaarna waxay sidhahdaan wixii adigu aad dareentay ilmahaagu yaanu dareemin, ama qofka kale yar ee bini-aadanka ah ama dadka kale waxaas ka ilaali maadaamaad ogtahay adigu xanuunkay leedahay. waxaan rajaynayaa in waalidiinta halkan igu xidhan aynu noqono dhammaanteen qaar ku fikiraya waxaas hadduu aniga igu dhacay waa inaan ka ilaaliyo qofkaa yaree kale miskiinka ah, qofkaa imika soo koraya noloshu u cusub tahay, qofkaa maaragtay adduunka halkii ugu horreysay jooga, inaanan qadhaadh dhadhansiinin oo noloshiisa 30 jirkiisa xasuusto. saasaan idinka rajaynayaa. qodobka koowaad waxa weeyaan ha sii gudbinin wixii adiga kugu dhacay. isku day in aad halkaa ku joojiso tiraahdo maya, ma ogolaanayo sidii aniga laygu soo korinayay ee dilka iyo canaanta iyo maaragtay bahdilka iyo hanjabaada lahayd inaan aniguna ilmahayga ku koriyo. waa inaan wax ka bedelo. maanta laga bilaabo waa inaad ku fikirto ka bedel wax ilmahaaga yar si kale oo maaragtay nabad ah oo xasilooni ah ayaan ku korinaya. go-aansa maanta insha allah. haddii aad doonaysid in xanaaqaagu yaraado oo nabad ku wada noolaataan caruurtaada, oonad noqon mar walba qof wax kastoy sameeyaan si u arka xun, niyadaada geli oo ka dhaadhici. haddii hore aanad u ogeyna, aniga iminka kuu sheegaya, caruurtu khalad ma sameeyaan ilaa iyo in isleeyihiin wax wanaaga samee mooyaane. culimada psychologiga ee ku takhasusay cilmi nafsiga caruurta had iyo jeer waxay nagu celceliyaan oo ay sheegaan caruurtu khalad kasta oo ay galaan waxay galaan iyagoo wax wanaaga ka wada, laakiin dadka waaweyn ma fahansana inuu ilmahaas islaha wax wanaagsan samee. muuqaalo badanna waan kusoo sheegay, waanan ku celcelinayaa. iminka haddii aad xashiish yar meel ku ururisay tusaale ahaan, ama aad koob meel dhigtay oo ilmaha geeri uu koobkii qaado dhulka ku dhufto, ama xashiishkii aad u timaado intaad ka tagto isagoo kala filqay, ilmahaasi wuxuu uga jeedaa inuu ku caawiyo oo xashiishkan meesha ka qaado. muhiimadiisu ma aha iyo ku talagalkiisu inuu meeshii xashiishkii kugu sii filqo aad meesha ku urursatay. marka maskaxda geli mar walba ilmahaagu khaladka uu galo wuxuu u galaa isagoo isla wax wanaaji, waayo noloshiibaa ku cusub, wuxuu doonaya inuu wax tijaabiyo, wuxuu rabaa inuu ku caawiyo, wuxuu rabaa inuu isagu xambarto. sidaa darteed khalad buu gelaya. marka mar walay taasi kugu soo dhacdana dulqaad baad samaynaysaa. waxaad odhanaysaa iska daa, miskiinka yar noloshiibaa cusub, adduunkiibuu iminka kala baranayaa, u kacaakufayaa, u dulqaado. haddaa taa niyadaada gelisid wallaahi xanaaq markiiba ma kugu soo dhacayo. qodobka kale wuxuu noqonayaa qodob had iyo jeer keena inay waalidku caruurta dilaan, inay ku xanaaqaan, inay qayliyaan. taas oo ah in xanaaqani uu meel kale ka yimi horoy marar badanna aan sheegay. isku day marka haddaad doonaysid inaad caruurtaada si nabada ku wada noolaataan, tarbiyadooda hagaajisa, akhlaaqdooda wanaagsanaato, adiga taadu fiicnaato, maskaxdaadu deganaato, inaad maaragtay adiga arrimaha meelaha kale kaa haysta aad xaliso. aad sida aad isleeda waad ku xalin kartaa ku xaliso, oonad xanaaqa caruurta yaryar ee guriga kuu joogtaa in waxba kala garanayn. yacni wax way kala garanayaan, laakiin meel waxaan kaaga furan yihiin ma oga. ha ka jarin iyaga, ha kula dhicin cadho ama xanaaq meel kale aad ka keentay.
muxuu og yahay markaad laad ku dhufato adigu waalid ahaan qodobka kale waxa uu noqonayaa adigu waalid ahaan inaad isku daydo in aad naftaada dejiso in aad noqoto waalid degan culimada nafsiga ee ku takhasusa dhinaca tarbiyadda caruurta waxa ay had iyo jeer sheegaan waalid kasta oo degan oo isagu deganaan aan qaylo badnayn oo maaragtay tartiib u hadla oo tartiib wax u sheega oo tartiibtiisa hawlihiisa wata in uu soo saaro caruur aan dhib badnayn oo aada u degan oo maskaxiyana maxay ahayd caqligooda ama IQ-goodu aada u sareeyo haddaba isku day inaad noqoto adigu shaqsiyan waalid degan marka hore adigu isteji kadibna markaasaad caruur degan oo aan qalqaale ahayn korin karaysaa yaree qaylada buuqa maaragtay hadday jeer innaga soomaaliha waxaad moodaa inaan kulligeen hadalkeenu dhaadheer iyo qaylo yahay oo inagoona wax xumaan uga jeedinba haddana saan wax isugu sheegaynaya qaabka maaragtay uu sidan samee sidan kale samee soo qabo cararkan waxyaabahaas oo dhan aad yarayso isku day si maaragtay gurigaaga caruurtaada adiga iyo naftaaduba u deganaata qodobka shanaad waxa uu noqonayaa ee aan halkan idinku hayaa ogow khalad kasta oo caruurtu ay sameeyaan inay ka baranayaan khibrad calashaan adigu noloshaada intii iminka aad soo noolay dib isugu fiirso khaladaad badan oo aad soo samaysay waxa aad iminka ka baratay khibrad fara badan yacni dib ma u sameynaysid ilaa qofka dib u sameynaya khalad uu beri hore galay dee kaas waxba kama odhan karo waxba muu baran bay ka dhigan tahay laakiin qofka bili-aadanka sideedaba wax kasta oo uu sameynayo oo maalinka khaldama wuxuu ka bartaa khibrad wuxuu yeeshaa calashaan waxaas mar kale kama khaldamaan haddii tusaale ahaan maxaan soo qaadaa fur yarba warqadan yar baan halkan ku hayaa haddii tusaale ahaan warqadani maalin adigoo saa u haya oo sidan iska lehlo wax muhiim kugu qano oo sidan kaaga jeexmatay dee maalinta dambe warqad muhiim oo aad leedahay sidaa uma qabqabanaysid waa tusaale un wax kastoo nolosha ka midina waa sida marka khaladaadka inay caruurtu galaan hadiidin waayo waxay ka baranayaan khibrad qofkuna nolosha haddaanu kicin oonu kufin oonu khaldamin oonu wax samaynin waxba ma baranayn nolosha waxaan u noolnahay waa inaan khalad sameyno khaladkeenna wax ka baranno kadibna khibrad helno halkaa hore uga sii soconno markaas ogow khalad kastoo ilmahaagu sameynayo da-du doona ha ahaado wuxuu ka faa'iidayaa cilmi buu ka baranaya cilmigu maaha ka laga dhigto oo keliyaata bugaagta laakiin tan kale waayo aragnimadu ka baranayaa oo khibrad buu ka helayaa waayo arag buu noqonayaa wuxuu noloshiisu ay anfacaysaa iyo koritaankiisay ka mid tahay qodobka u dambeeya ee lixaad waxa uu noqonayaa maadaamaad waalid tahay oo aad caruur dhashay oo adigu go-aansatay inaad guursato ilmo dhasho guri yeelato ubad mas-uul ka noqoto ubadkiina ilaahay ku siiyey oo nimcadiisa alxamdulilah aad haysatid waa inaad mar walba samir iyo dulqaad aad ka dhigato maxay qori ka dhigato yacnii hub ka dhigato waxa aad naftaadu waa inay samir iyo dulqaad mar walba aanay ilaabin ku ducayso ilaaho samir isii ku ducayso dadka carabta ah aad ba hadalkoodu inooga fiican yahay ma odhanaya dadku inaga fiican yihiin laakiin kelmadaha ay isticmaalayaan calasha hadallada ay odhanayaan mar walba ducaa ku jirtaa hadal yaroo macaan baa ku jira ma garataan markaa ilaaho samirna sii ku ducayso iyagoo qofkii ku xanaaqsan oo qaylinaya ayay ku ducaysanayaan ilaaho sabirisi ayaa odhanaya ilaaho samirisi markaa samir iyo dulqaad yaan la ilaawin mas-uuliyaddan way ku haysataa sidii maaragtay aad si bilaa turxaana ilmahan ugu korin lahayd si bilaa cuqdada ugu korin lahayd si degan ugu korin lahayd adiga mas-uuliyadaada tahay maaha isaga mas-uuliyadiisa waalidka calacala markasta ee ilmaha eedda saaran isagana waan kasoo hadlaynaa margooniya ba-aye ilmahan xune anigu si walba waan fiicanahaye waan kasoo hadlaynaa isagana waalidka aan isku muuqanin khaladkiisa oo keliyaata dadka kale eedda saara muuqaalkan iyo 6dii qodob ee muhiimka ahaa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo muuqaalada ku xiga insha allah ee daawan doonto waxa aan kaaga tegayaa like badan saar share garee soo dhawow
dee waa idinkaa bahda barbaarsama channel waxaan isku ogaanaa insha allah waan idinku dhaafayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.